degmada Ceelberde oo dhanka waqooyi galbeed kaga beegan gobolka Bakool qiyaas ahaan u jirta 90 kiiloomitir magaalada Xudur ee gobolka Bakool ayaa bulshada ku dhaqan degmadaasi waxay cabasho balaaran ay ka muujiyeen baahiyaha caafimaad iyo tan waxbarasho ee xilligan ka jira degmadaasi xilli ay booqdeen maamul iyo mas'uuliyiin ka tirsan dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa kormeer ku tagay goobo ay ka mid yihiin isbitaalka degmadaasi dugsiyada waxbarasho garoonka kubadda cagta iyo kan diyaaradaha ceelasha biyaha iyo goobo kale mid ka mid ah bariyaasha wax ka dhiga dugsiyada waxbarasho ee degmada Ceelberde ayaa ka hadlay heerka waxbarasho ee degmada raslaan baa jirto ardayda soo badanaysa marka ka dambaysa maxaa dhiirgelin maadaama ay helaysaa ardaydu maalmaha ka dambaysa soo badanaysa waxa kuraastii waa ugu yartahay balaarinta fasaladii waa ugu yaryihiin oo wada artanada fasalada qaarkood koobaadka oo kale shingad bay fadhiyaan xilligan maarsada kuleelka ah xildhibaan maxamed xuseen oo loo garan og yahay geedi isla markaana qayb ka ahaa mas'uuliyiinta kormeerka muddada qotada dheer u joogay gobolka Bakool ayaa dhankiisa aad ugu deeriyay xaaladaha dhibaato ee dhawaan ka soo cusboonaaday degmadaasi iyo deegaanada kale ee hoos yimaada waxaan soo wadnay waayadan safar dheer oo dhulka aan ku marino oo qaybtan gobolka Bakool qaybta xuduudda oo meelo badan aan ku tagnay ogeydeen oo sii socotay maanta waxaan joognaa Ceelberde oo ku suganahay saaka waxaan booqannay isbitaalka ceelkii biyaha ee Riiga oo laba ceel baa magaalada ka jiray ceel uu jaban yahay runtiina ay ka jirto biyo la'aan badan iyo baahi badan oo mataqaanaa ay dhanka biyaha xoolihii deegaanka joogay iyo dadku mataqaanaa ay ku heshiiyeen in halka ceel ay joogo oo aan ka codsanayna wasaaradda biyaha ee Koonfur Galbeed Soomaaliya in ay mataqaanaa ay soo gaadho ceelka kale bulshadu ay baahan tahay in la hagaajiyo ka kale iyo biyadaan in bulshada loo suubiyo oo mataqaanaa biyadaan loo suubiyo runtii baahida ka jirta dhanka biyada waa mid aan caadi ahayn oo aan ka yaabnay waxa kale oo aan booqannay isbitaalkii oo asagana mataqaanaa xaaladda ka jirta aan ku soo aragnay qof bukaan ah oo mataqaanaa meesha yaalo isbitaalka degmada Ceelberde wax laga qaban waayna gudoomiyaha gobolka iyo xildhibaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed inaan ka mid ahay aan rabnay inaan qaadno emergency aan u qaadno Xudur oo diyaaradan saaka aan raacayna aan saaro oo geeyno Xudur oo isbitaalka weyn ee Xudur mataqaanaa in lagu dabiyo lagu daweeyo aan rabno runtii waxa kale oo noo dhiman hadda oo rabnaa inaan tagno aan nimaanay iskuulkii oo hadda mataqaanaa aan joogno asna xaaladiisa iyo wixii ka jira aan rabnay runtii waa u jeedin dayac badan ka muuqdo iskuulka markaad fiirisay xaaladaha uu ku jiro iyo inta uu guubis dhayeen aad bay u kala duwan yihiin waxa jirto kale dayac korka ka muuqda darbiyada iyo burburka guud ka muuqda markii laga sitay waxa kale oo jirta in xataa fasalada ay ku yariyeen ciyaalka oo balaarin u baahan yahay fadhi un lahayn oo kuraas u haysanin macallimiinta laftooda inay cabasho badan oo mataqaanaa dhanka mushaarka ay u baahan yihiin iyadana mataqaanaa ay u baahan yihiin in laga caawiyo waxaan ka codsanaynaa marka wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed Soomaaliya in ay soo gaadho mataqaanaa iskuulkan si khaas ah ay mataqaanaa u soo siiso oo xaaladiisa haday balaarin noqoto iyo haday dhanka mushaarka iyo mataqaanaa dhanka macallimiinta noqdaan iyo haday qalabka kale kuraas ay u horeeyaan ay noqdaanba airportigan loo wada ilaashado maadaama oo dadku wada leeyihiin marka safarkii dheeraa ee soo soconay waxa kale oo booqan asagana garoonka kubadda cagta ee degmada Ceelberde dhalinyarada ku ciyaaraan asagana runtii waxaan ka codsanaynaa wasaaradda isboortiga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo federaalkaba in si iskaashi leh garoonkaasi wax looga qabto asaga laftiisa dhulka la boobahay dawladii burburka kadib la boobahayaan welina aan helin in bulshadii banaanka laga mariyo ku jira la wadaana dawladda oo horeeyay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Xasan Laftagareen hadduu alla yiraahdo aan rajaynayno baahidan jirto hadduu alla yiraahdo bulshada ay hayso in laga jawaabi doono maxamed Khasiir Jito RTN TV Baydhaba